daawadayaal waxaan muuqaalkan ku eegaynaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka socda dunida. ka habare ayaad naga daawanaysaan. fadlan subscribe saar YouTube-keena, sidoo kale like saar. mahadsanid. xiisadda Ruushka iyo reer galbeedka ayaa faraha ka sii baxaysa Yurub oo 10 sano kadib qarka u saaran inuu dagaal ka qarxo dalka Ingiriiska oo ciidamo u diray Ukraine. Ruushkana waxa uu kordhiyay hanjabaado joogto ah oo uu u dirayo dalkan yar ee Ukraine. 100,000 oo ciidamo ah ayuu diyaarsaday Ruushka. wararkaasi iyo wararkii ugu dambeeyay xiisadda reer galbeedka ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa ee soo dhawaada. Yurub hadda waxay qarka u saaran tahay inuu dagaal ka qarxo marka loo eego sidii ay ahayd tan iyo markii ay burburtay Yugoslaviyadii hore. waa kelmado adag oo u muuqday digniin kuwaasi oo uu sheegay diblomaasi sare oo reer Yurub ah oo ka hadlayay xiisadaha hadda kala dhaxeeya Moscow ee ku saabsan isku dhafka military ee ballaaran ee ay ka wadaan xadka Ukraine. niyadda Brussels waa mid aad u kacsan. waxaa jirta cabsi dhab ah oo laga qabo in Yurub ay u janjeersato dhanka qalalaasihii amni ee ugu xumaa muddo 10 sano ah. laakiin xanaaqu gabi ahaanba diiradda kuma saarayo rajada laga qabo dagaal dheer oo dhulka ah oo lala galo Ruushka oo ku wajahan Ukraine. dad yar oo ku sugan halkan ayaa aaminsan in Moscow ay leedahay awood military oo waxa ay leeyihiin ha ka fikirin lacagta ama dhaqaalahooda ama taageerada dadka dalkooda. midowga Yurub wuxuu uga digayaa aqalka criminalka cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii uu qaado tallaabo military oo ka dhan ah dalka diriska la ah ee Ukraine. wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena oo booqatay Moscow ayaa sidaasi sheegtay Isniintii la soo dhaafay. Sweden waxay 100 ciidan ah isbuucan dhamaadkiisa geysay jasiiradda istiraatiijiga ah ee Scotland oo ku taala badda Baltic, halka Denmarkna ay xoojisay joogitaankeeda gobolka maalmo ka hor. xiisadda sii kordhaysa ee Yurub ayaa sidoo kale dib u kicisay dooda labada dal ee Finland iyo Sweden ee ku saabsan inay hadda ku biirayaan ururka NATO iyo in kale. laakiin walaaca ugu weyn ee ka jira galbeedka ayaa ah Washington, NATO, UK iyo midowga Yurub, waxaana aad u yar suurtagalnimada ah inuu dagaalka caadiga ah oo u dhaxeeya dalalkan uu ka dhaco dalka Ukraine. xukuumadda Moscow waxa ay raadinaysaa inay kala qaybiso oo ay qalqal geliso Yurub iyada oo doonaysa inay gilgisho dheelitirka awoodda qaaradda Yurub si Ruushka uu uga faa'iideysto. ra'iisul wasaaraha Poland Maytus ayaa sheegay dabayaaqadii sanadkii hore in reer galbeedku ay u baahan yihiin inay ka kacaan hurdadooda la xiriirta juqraafiyadda ee ku saabsan ujeedooyinka Moscow. wadamada midowga Yurub waxay oran lahaayeen hadda waan ka toosnay hurdada, wax badanna waan fahnay. balse sida inta badan dhacda marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda, madaxda midowga Yurub aad ay uga fog yihiin in ay ka mideysan yihiin tallaabada saxda ah ee ay qaadayaan. xukuumadda Moscow ayaa beenisay inkastoo ciidamo badan ay ka aruuriyeen xuduudda Ukraine in ay qorsheenayaan duulaan military, balse waxay soo saartay ururka NATO liis ay ku qoran yihiin dalabaadyo amni. Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka wuxuu ku adkaystay in NATO ay ka mamnuucdo Ukraine iyo wadamo kale oo horey u ahaan jiray Sofiyeetka inay weligood xubin ka noqdaan ururkan. NATO ayaa si cad u diiday 3 shir ee u dambeeyay ee u dhaxeeyay Ruushka iyo xulafada reer galbeedka. sidaas darteeda waxaa lagu guuldareystay in dhammaan shirarkaasi ay ka soo baxaan wax la taaban karo. tallaabada xigta ee uu Vladimir Putin qorsheenayo inuu sameeyo ma cadda, laakiin reer galbeedku waxay rumaysan yihiin in criminalku uu wax badan geliyay dhaqdhaqaaqiisa guud ee Ukraine. maamulka Biden wuxuu si hagar la'aan ah u sugayaa mowqif adag oo ka soo baxa midowga Yurub kaasi oo ku saabsan cunaqabataynta suurtagalka ah ee ka dhanka ah Ruushka, iyadoo ku xiran tallaabada ay Moscow qaadayso. duulaan military oo ay ku galaan Ukraine ama weerarada internetka. dadka rajada leh ee reer Yurub ayaa saadaalinaya in ururka uu ku heshiin doono cunaqabateyn suurtagal ah marka la gaaro 24 Janaayo kadib kulanka soo socda ee wasiirada arrimaha dibadda, laakiin taasi waa ka fog tahay damaanad qaadka. tiro ka mid ah wadamada midowga Yurub ayaa ka walacsan saameynta ay cunaqabateynta Ruushka ku yeelanayso dhaqaalaha dalalkooda.
xarunta midowga ee Brussels sida caadiga ah waxay ka hadashaa culayska markaasi jira laakiin kama fekeraan natiijada wadaxaajoodyadaasi oo waxaa laga yaabaa in aanu qof walba ku farxin. waxaa sidoo kale jira walaac baahsan oo ay qabaan dadka midowga Yurub kaasi oo muujinaya saadka gaaska ee Ruushka gaar ahaan iyadoo qiimihiisu aad sare ugu kacay xilliyadii dambe. xukuumadda Washington ayaa sheegtay in ay eegayso siyaabaha lagu qafiifinayo saamaynta saadka tamarta. waxa ay doonaysaa in ay ku degdegto midowga Yurub in ay ku heshiiyaan mowqif adag oo ku saabsan cunaqabataynta iyada oo si fiican u ogsoon in siyaasadda arrimaha dibadda ansixintu ay u baahan tahay inay noqoto mid ay u dhan yihiin dhammaan wadamada xubnaha ka ah midowga. dhanka kale isniintii xogayaha difaaca ee Ingiriiska Ben Wallace ayaa ku dhawaaqay in Britain ay siinayso Ukraine gantaalada ridada gaaban ee lidka taangiyada si ay isugu difaacdo. tallaabadani ayaa timid kadib markii Ruushku uu ku soo ururiyay ku dhawaad 100,000 oo askar goobta ku taala sohdinta u dhaxaysa labada dal ee Ruushka iyo Ukraine sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga Ingiriiska. Ben Wallace ayaa intaa ku daray inuu ku wargeliyay xildhibaano dhowr ah oo ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska inay ciidamo kooban oo Ingiriis ah u diri doonaan Ukraine si ay markaa ugu tababaraan ciidamo dalkani. wuxuu xusay wasiirka inay jiraan sababo sharci ah oo ciidamada Ruushka loogu qaadi karo weeraro. Ruushka uu iska fogeeyay qorshe kasta oo duulaan ah isagoo dhanka kale ku eedeeyay dalalka reer galbeedka gardaro iyo daandaansi. Master Wallace ayaa mar sii horeysay uga digay xukuumadda Moscow in ay jiri doonto cawaaqib ka dhalan kara tallaabo kasta oo Ruushka u qaado dhanka Ukraine. Britain waxay u taagan tahay inay ka hortagto oo ay istaagto cagajuglaynta si kasta oo khilaafka u fogaado ayuu yiri. xukuumadda Washington waxay ku adkeysanaysaa in uusan jirin waqti badan oo la lumiyo tallaabo degdeg ahna la qaado. kriminalka ayaa meesha ka saaray sheegashada Washington waxa uuna ku tilmaamay mid aan sal lahayn. reer galbeedku haatan waxa ay isku dayayaan inay ka hortagaan waxa iman kara ama tallaabada xigta ee Ruushka uu qaadi karo. wararkii ugu waaweynaa ee dunida ka taagan waa naga intaa wixii ku soo kordha. si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee caalamka subscribe sar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka. mahadsanid.